bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada daawadayaal warka xogta TV qodobadaad ku daawan doontaan waxa ugu dooran dowladda Soomaaliya oo ka baxday heshiis ay la gashay maamulka Ahlus Sunna wal Jamaaca ee ahaasiinta xildhibaano ka tirsan Galmudug oo gaaraya 30 xildhibaan gudoomiyihii golaha badbaadada mucaaradka Jubbaland oo xalay Kismaayo lagu toogtay culimada magaalada Garowe oo aad u jeediyay madaxweynaha maamulka Puntland madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle oo ku dhawaaqay howlgal ka dhan ah dagaalamayaasha shabaab oo ka bilaaban doona deegaanada maamulka Umar Finish oo la kulmay xildhibaano u ololeynaya maqaamka gobolka Banaadir ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta 12aad iyo odayaasha dhaqanka degmada Balambal oo heshiis gaaray warka dibadda daawadayaal waxaa ka mid ah isbitaal ku yaala dalka Brazil oo dad badan ay ku dhinteen hagaag haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawadii subscribe channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka taariikhdu waxay tahay 14 bisha 9aad Sebtembar 2019 intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay ka laabato heshiiskii la tilmaamay inay 30 xildhibaan ugu ballan qaaday Ahlus Sunna wal Jamaaca sababta ayaa sida aan xogta ku helnay in dowladda ay baqdin ka qabto halka ay ku biiri doonaan xildhibaanadan 30 ah ay ka imaanaya Ahlus Sunna maadaama la sheegayo inay xukuumaddu wadato musharax codadkana ku xisaabtamayso xogta aan helnay ayaa sheegaysa in dowladda ay damacsan tahay 30kaas xildhibaan ay Ahlus Sunna ugu bedelaysa lacag sida ay noo sheegeen ila xog ogaala lama oga in Ahlus Sunna ay aqbalayso iyadoo hore u sulugsaneed 30 xildhibaan ee la siiyay kadib markii Ahlus Sunna iyo dowladda heshiiskii ay hore ugu midoobayeen Ahlus Sunna loo ballan qaaday xildhibaan gaaraya 35 inkastoo markii dambe dib xildhibaanada looga noqday lana geeyay 30 xildhibaan gudoomiyihii guddiga badbaadada Jubbaland ayaa xalay lagu toogtay magaalada Kismaayo Abukaate Axmed Jaamac Qalyar oo ahaa gudoomiyaha guddigii la magac baxay badbaadada Jubbaland oo ay sameysteen musharaxiinta isbedel doonka Jubbaland ayaa xalay lagu weeraray magaalada Kismaayo Axmed Jaamac oo sidoo kale ahaa nabadoon si weyn looga yaqaan magaalada Kismaayo ayaa dabli hubeysan waxa ay weerar ku qaaday xilli uu ku sugnaa goob bibita ah oo ku taala bartamaha magaalada Kismaayo xubno ka tirsan xildhibaanada garabka madaxweynaha uu doortay Cabdirashiid Xidig ayaa warbaahinta waxa xaqiijiyay in dhowr xabad lagu dhuftay isla markaana dhaawac daran uu ka soo gaaray rasaasta ay ku fureen kooxdii weerarka ku qaaday dhaawaca nabadoonka oo sida la sheegay aad u daran ayaa hadda lagu dabiibayaa isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo waxaana la xaqiijiyay in ilaa 4 xabadood oo mid kamid ah rasaastii lagu weeraray ee madaxa kaga dhacday dableydii dhaawaca u geysatay nabadoon Axmed Jaamac ayaa goobta iskaga baxsatay welina wax war ah oo ku aadan arrintan kama soo bixin hay'adaha ammaanka maamulka Jubbaland ninkan ayaa hadda waxa jaga ah ka hin garabka isbedel doonka ee madaxweynaha u doortay Cabdirashiid Xidig balse waxa uu gudoomiye ka soo noqday guddigii ay sida wadajirka ah u magacaabeen musharaxiintii isbahaysatay ee la magac baxay isbedel doonka Jubbaland guddiga uu gudoomiyaha ka ahaa ayaa soo xulay xildhibaanada Jubbaland ee garabka madaxweynaha u doortay xildhibaan Cabdirashiid Xidig shalay ayay ahayd markii madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu digniin iyo goodinba u diray ragga sheeganaya inay yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo dadka uu ku tilmaamay in ay wax u dhimayaan ammaanka magaalada Kismaayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa sheegay in dhawaan deegaanada maamulka uu ka kooban yahay ka bilaabi doonaan howlgal ka dhan ah dagaalamayaasha shabaab Cali Guudlaawe ayaa sheegay in isaga iyo waare madaxweynaha maamulka ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kana dalbadeen inay maamulkooda ku gacan siiyaan howlgal ka bilaaban doona gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe uu ka kooban yahay maamulka Cali Guudlaawe ayaa tilmaamay in howlgalkaas ay si wadajir ah uga qayb qaadan doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Hirshabelle amniga guud ahaan dalka Soomaaliya waxa ka socda howlgal balaaran insha Allah qaybaana ka nahay aniga iyo madaxweynuhu isla soconana waxaan u tagnaa madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
aan ugu tagnay arrin waxa kale oo ugu tagnay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre intuba waxay naga ballan qaadeen howlgalka ka socda shabeellaha hoose shabeellaha dhexe in lagu ballaarin doono waqti aan saas u dheerayn waxaan xanuunka uu idinku haayo amni la'aanta iyo maaragtay culayska dareemaysiin annaguna waa dareemaynaa insha Allah haddii la raalli ka noqdo annaguna waa horkacaynaa oo shabeelle ciidamada jooga waa diyaarsan yihiin waana la horkaca insha Allah haddii la yiraahdo dhowaan ayay ahayd markii maamulka degmada Balcad iyo waxgaradka degmada ay maamulka Hiirshabeelle ka codsadeen in shabaab laga saaro deegaano iyo tuulooyin hoos yimaada degmada Balcad oo dhib badan ay ku hayaan dadka halka ku nool maalmihii u dambeeyay shabaab waxa ay la kulmayeen guluf xoog leh oo uga imaanaya ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM isku dhinac ah masjidka Al-Huda oo kamid ah masaajidada ugu waaweyn magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa salaadii maghrib ee xalay madaxweynaha Puntland Siciidane looga soo jeediyay amaan iyo dhaliil oday kamid ah culimada magaalada ayaa masjidka ka sheegay in madaxweyne Dani tan iyo intuu xilka hayay uu ku guuleystay qodobadan bixinta mushaarka shaqaalaha soo deen markab siday qalab lagu dhisay dekada Garacad magacaabista guddiga doorashooyinka furista qunsuliyadda Hindiya hirgelinta duulimaadyada tooska ah ee diyaaradda Itoobiya dhanka kale madaxweynaha ayaa lagu eedeeyay qodobadan in uu keenay Garowe heesa badan iyo ciyaarta yacko oo laga dheela dalka Hindiya duqa caasimada ayaa qaabilay xildhibaano u doodaya maqaamka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Finish ayaa xafiiskiisa ku qaabilay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay waday olole maqaamka caasimada xildhibaanadan uu la kulmay waxa kamid ah Cabdiqaadir Cusable Cali oo mudooyinkii u dambeeyay hogaaminayay mashruuca maqaamka gobolka Banaadir ee ku aadan sidii dadka gobolka Banaadir degaa ay u soo dooran lahaayeen maamul ku yimaada rabitaankooda duqa caasimada ayaa kala hadlay xildhibaanada dadaalada ay wadaan sidii xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir dawladda Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeeda in maqaam ay yeelato magaalada Muqdisho waxaana xusid mudan in gudoomiyaha gobolka Banaadir Thabit xilka looga qaaday raadinta maqaamka caasimada ciidanka xoogga iyo odayaasha Balanbal ayaa heshiis hordhaca gaaray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybta 12aad oo gaaray deegaano kamid ah degmada Balanbal ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa halkaasi ka bilaabay dadaalo kala duwan oo lagu soo afjarayo dagaal beeleed halkaasi ka socda saraakiisha ciidanka hogaaminaysa ayaa kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka degmada Balanbal waxaana ay ka dalbadeen in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka isla markaana la kala qaado kooxaha hubeysan ee dagaalamaya odayaasha dhaqanka ayaa aqbalay joojinta dagaalka waxaana hadda la gaaray isfaham hordhaca sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka qaybta 12aad odayaasha dhaqanka ayaa ka codsaday saraakiisha ciidanka inay joogaan magaalada si ay qayb uga noqdaan dadaalada dib u heshiisiinta ay ka bilowday magaalada Balanbal iyo deegaanada hoos yimaada ku dhawaad 11 ruux ayaa ku dhimatay dab ka kacay isbitaal ku yaala dalka Brazil waxa ku dhimatay ugu yaraan 11 ruux isbitaalkan ku yaala waqooyiga caasimada Rio de Janeiro ayaa laga saaray bukaano badan kadib markii dab xoogan uu ka kacay isbitaalka habeenkii Khamiista haweeney ayaa warbaahinta Global u sheegtay in aabaheedu 77 sano jir ah kamid ahaa bukaanadii ku sugnaa isbitaalka sidoo kale goobjoogayaasha qaar ayaa wakaalada wararka Reuters u sheegay in bukaanada qaar ay isku dayeen inay ka boodaan dhismaha isbitaalka xilli qaarkood ay u qaalilayeen maamulaha isbitaalka ayaa sheegay in aaminsan yihiin inuu jiro wax dab kiciyay oo sabab u ahaa balse weli waxa socda baaritaan lagu hayo waxa sababay dabka daawadayaal waa naga inta warkii aad kala socoteen xogta TV haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka